maanta waxaa halkan ka dhacay go'aan aan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed halis ayuu ku yahay. wuxuu ahaa in loo adeeyey in qof aan Soomaali ahayn bankiga Soomaaliya uu xukumi karo. xildhibaanadii Soomaaliyeed ee maanta halkan yimid waxaanu isku daynay inaannu hadal jeedinno oo khudbooyinkayaga aanu isku daynay inaannu ku qancinno baarlamaanka intiisa kale. nasiib darra fursadu maanan helin, waa naloo diiday. barnaamij la soo abaabulay xukuumadda soo abaabusha darteed baana lakugu diiday. cod baa la yidhi. waxaa xataa naloo diiday fursaddayadii inaan cidnaha halkaas aanu ka nidaanno. sidaa darteed waxaan jeclaystay in khudbadii aan akhrin lahaa oo la ii diiday oo guddoonku ii diiday inaan halkan ka akhriyo. sidan ayayna u qoran tahay. mudana guddoomiye, ugu horrayn waxaan adiga iyo golaha sharafta leh idinka salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. salaan kadib, maanta waa maalin kale oo ay na hortaal arrin masiiri ah. maanta oo kale waa maalintii shacabweynaha Soomaaliyeed ay si weyn diiradda u hayaan go'aamada uu qaadanayo golahan. maanta waa maalin qarannimadayadu ay gudbayso booraan badan, ayna u baahan tahay geesinimo, isku kalsooni iyo muujinta dabciga iyo abuurka ummadda Soomaaliyeed oo ah mid aan gorgortan difaacisteeda, qiyamkeeda iyo sharafteeda. mudana guddoomiye, dalkan danihiisa xeerar u adeega horay ayay ugu qoreen dowladihii naga horreeyey. mana aragno duruufo qasbaya oo loo qaateena wax ka beddelka xeerka bankiga dhexe ee lambar 130. wax ka beddelkani waxaa soo ansixiyey golaha wasiirada oo horay u qaatay go'aamo ummadda Soomaaliyeed uurku taallo ku beeray, sida dhiibiddii qalbi dhagax iyo ku sheegiddii ururka ONLF argagixiso. go'aamada noocaas oo kale marka ay golaha qaataan, sida caadada ahayd loogana bartay golaha shacabka, waa in aanu muujinnaa geesinimo, isla mar ahaantaasna ganafka ku dhufannaa wax ka bedelidda xeerka bankiga dhexe oo la doonayo in lagu yeelo summad mahadha ah oo aan ka tirmi doonin qaranka Soomaaliyeed hay-adihiisa, gaar ahaan baarlamaanka. mudana guddoomiye, waxaan u baahannahay in gebi ahaanba arrintaa la diido sababahan. kow, waa maxay baahida loo qabo in xeerkan wax laga beddelo? labo, maxaa ku soo beegay wakhtiga dadkii soo codsaday ee Soomaaliyeed la kala saari lahaa? saddex, waxaa la waayey dad Soomaaliyeed oo aqoontaas leh. afar, waxaa nala leeyahay khubradii Soomaaliyeed ee soo codsatay ee la yaqaanay ma ahan kuwii la rabay, mana aysan soo buuxin shuruudihii laga rabay soo codsigooda. shan, waxay ummadda Soomaaliyeed u tuhunsan yihiin in qof la og yahay oo ajnabi ah booskan loo wado. maxay yihiin aqoonta iyo waayo-aragnimada uu qofkaas gaarka u leeyahay Soomaalida soo codsatayna uu dheer yahay? lix, golaha ma la hor keeni karaa khibraddii iyo aqoonta uu qofkaas ummadda dheeryaha uu leeyahay? toddoba, haddii qof qalaad aan xeerkan u beddelno, maxaa diidaya in barritana aan beddelno lahaanshada dhulka Soomaaliyeed? waa halkaan ka oran jiray Soomaaliya waa iib, meel lagu dagaalo dalka ciidankiisii dooxeen cadaawaha durba guulo badan iyo degmooyin ay xoreeyeen. doqon caadigu soo duma durbaanu garaacaa, dabadeed yidhaahda anigaa dallaaloo dalka noo gadaaya. danyarta iyo maskiinka iyo dumarkaan duhayana dani nagama haysee. dibadbaxa dadweynow daartay dhex jiifaan iyaguna isku doorteen, haddana ay ka doodaan danahooda gaarka waa in laga dushaayo dibadda laga saaraa. xildhibaanada gadaal ka hadlaya shaki kuma jiro inaan qorayno heestii xildhibaanada xaal qaadatuu magacyadooda ku soo bixi doonaan. intaa sow gaf ku noqon mayso jiritaanka iyo madax bannaanida golaha shacabka in wax ummaddu diidan tahay lala hor keeno, nalagana fisho inaan yeelno wax ka beddelka khatarta xambaarsan. sagaal, sida xeerarkeenna shaqaaluhu qabaan, shaqo qof Soomaali ah uu ka shaqayn karo qof qalaad looma dhiibi karo iyadoo